bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan ee daawadayaal meel kastoo dunida aad ka joogtaan iyo solbood nala socotaan halkani waa shabakada wararka ee shacabka TV oo idin soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale waxaan idin soo gudbin doonaa warar kale oo xiiso leh oo ku saabsan xaaladda wadanka iyo caalamkaba haddii aynu eegno oo kale maxaa ka soo kordhay xiisadii ka taagneed gudaha magaalada Muqdisho Roble oo markaasi ku amray wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale maareeyaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho in si sharud la'aan ah loo furo qaybtii reer galbeedku wax kala soo degayeen ee gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho dooda taagan iyo sidoo kale wasiirka oo ka hor yimid ayaan eegi doonaa isku dhaxaya siyaasadeed oo muujinayo Maxamed Xuseen Roble akhbaraadka kale aan idin hayno waqtigani waxaa kamid ah ummadda Soomaaliyeed oo bilaabay kacdoon ka dhan ah kooxaha dabadhilifka u adeegaya kacdoonkaasi oo ka bilowday gudaha dalka sida magaalada Muqdisho gobolada qaar ee dalka sida gobolada dhexe gobolada waqooyi iyo gobolada koonfurta Soomaaliya waxaan eegi doonaa kacdoonka ay bulshada Soomaaliyeed kaga soo horjeedaan in wadankan oo mar kale shisheeye ka adeegto ayaan eegi doonaa iyo dareenka bulshada Soomaaliyeed siday ugu falceliyeen dhibaatooyinkii iyo talaabooyinkii kale oo ay qaadeen kooxda markaasi shisheeyaha u adeegaya waxa kale oo eegi doonaa oo warka iyaga ku daawo doontaan ma ogtahay muwaadin dhibaatada ugu weyn ee ka jirta gudaha dalka in ay tahay kala sareynta sharciga iyo dastuurka dalka u degan oo ay markaasi ka soo horjeestaan oo ay ka hor yimaadaan kooxaha danleyda ee siyaasadeed kuwaasi oo aanay marnaba ogoleen in dowlad adag iyo sharci adag uu dalka ka shaqeeyo qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin soo gudbin doonaa meel kastoo aad dunida ka joogtaan kulanti haboon ayaan u leenahay halkani waa shabakada wararka shacabka TV oo idin soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale daawadayaal doodeedu waxay ku saabsan tahay waraygiina Saliimka ku soo cabiri doontaan intaan warka iyaga ku guda jirno Soomaaliya dhibaatada ugu weyn ee ka taagan ayaa la isla qariyay inay tahay kala sareynta sharciga oo qaar kamid ah siyaasiyiinta ka hor yimaadaan midda haatan ka taagan magaalada Muqdisho sida Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arintii ugu weyn oo la isku haysta ayaa ah Roble oo diidan kala sareynta sharciga maadaama madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu yahay madaxweynaha sharciga ee dalka ilaa iyo madaxweyne kale laga soo dooranayo taasi oo dastuurkaba ku qoran ummadda Soomaaliyeedna ay qirsan yihiin asaahate kooxda danleyda ee Roble uu ku jiro markaasi ay arintani aad uga soo horjeedaan waa qodobkeega ee dooda channelka subscribe hadin ahado muuqaalka like no sara wixii xogay macluumaad waxaad noogu hagaaji kartaan xafiiska wararka shacabka TV qaybtiisa magaalada Muqdisho idinkoo garaacaya nambarka Soomaaliga eber 6393664 waa nambar Soomaali ah eber 6393664 halkaas ayaad noogu soo gudbin kartaan wixii xogay macluumaad aynu ku bilowno warkeena Maxamed Xuseen Roble ayaa wuxuu amray in loo sii fasaxo reer galbeedka qaybtii laga xanibay ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ee terminalka halkaasi oo ay waxa ay doonaan kala soo degayeen reer galbeedka go'aankan uu qaatay Maxamed Xuseen Roble oo qatartiisa leh waxa uu imaanaya xilli mudooyinkii ugu dambeeyay uu Roble ku dhacayay qaladaad baahsan oo dastuuri ah asaahate waxa ka hor yimid saraakiisha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho inay fuliyaan amarka sharci darada ah ee uu soo saaray Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaarihii hore ee shaqo joojinta lagu sameeyay kaasi oo qaladaad baahsan ku dhacayay maalmihii ugu dambeeyay dhinaca kale Roble waxa uu aad ugu shaqeynayaa in Imaaraadka Carabta uu dib ugu wareejiyo xerooyinkii uu ka maamulayay gudaha magaalada Muqdisho sida xerada General Gordon taasi oo kamid ah heshiisyada uu la saxday dowladda Imaaraadka Carabta dhinaca kale xogaana helena ayaa tilmaamaya in Roble uu sidoo kale u fasaxayo dhawaantan dowladda Kenya qaadkii ay ku soo daabuli jirtay gudaha dalka Soomaaliya wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa soo gaari doona dhawaan magaalada Muqdisho waxaana uu Roble kula qaadan doonaa isla gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho maadaama uusan u gudbin karin madaxtooyada Roble ayaa wuxuu imanka si toos ah ugu shaqeeyaa xafiisyo gaar ah oo uu ka sameystay gudaha magaalada Muqdisho xilli ay ku adkaatay in madaxtooyada qaranka uu ka soo saaro waraaqadaha iyo go'aanada adag ee uu markaasi ku dhaawacayo dowladnimada Soomaaliya
inkastoo badi go-aanadii uu soo saaray Maxamed Xuseen Roble uu ku guuldaraystay, hase ahaatee wuxuu isku dayayaa marka uu go-aan ku guuldaraysto go-aan kale oo kaasi beddelkiisa ah inuu markaasi qaato. dhinaca kale marka aynu eegno, kacdoon xoogan ayaa ka bilowday gudaha dalka oo ay dhigayaan bulshada Soomaaliyeed kagana soo horjeedaan danaha shisheeyaha oo ay markaasi ugu adeegayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta dhuniraaca ah. magaalada Muqdisho iyo badi magaalooyinka gobolada dalka ayaa bulshada Soomaaliyeed waxay bilaabeen in ay qabanqaabiyaan isku soo baxyo iyo kulamo ay kaga soo horjeedaan danaha shisheeyaha dusha ka riixayo ee la rabo in ummadda Soomaaliyeed dib loogu celiyo dhibaatadii iyo dowlad xumadii ay ka soo gudbeen 22 sano ee la soo dhaafay. waxaa isa soo taraya jawaabaha iyo falcelinta baraha bulshada iyo warbaahintuba marsiinayaan shacabka Soomaaliyeed oo ay kaga soo horjeedaan danaha shisheeyaha dusha ka riixayo, taasi oo haddii ay sii socoto la ogyahay inay Soomaaliya dib ugu laaban karto wixii ay ka soo gudubtay ee dhibaato iyo hadimo ah. dhinaca kale marka aynu eegno dhibaatada baaxadda leh ee ka taagan gudaha dalka, waxaa la isla qirayaa in ay tahay sharciga oo markaasi uu ku tuntay Maxamed Xuseen Roble, sida uu dastuurka Soomaaliya qeexayo iyo xeerar ay hor u soo saareen baarlamaanka tobanaad ee haatan weli dalka ka dhisan ama ka jira. hay-ad waliba oo dowladda ayaa sii shaqeynaysa ilaa iyo hay-addii bedeli lahayd laga soo saaro. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dastuurku waxa uu qeexayaa inuu sii joogayo xafiiska markay dhamaato 4 sano ilaa iyo laga doorto madaxweynaha cusub ama heshiis kale uu ka dhaco. halka sidoo kale xeer baarlamaanka tobanaad ay horey u soo saareen xilligii Jawaari uu ahaa gudoomiyihii baarlamaanka uu qeexayo in hay-ad walba ay shaqeyso ilaa iyo laga soo saaro hay-addii bedeli lahayd. shacabka TV ummadda Soomaaliyeed wuxuu dib u xasuusinayaa xeerkii baarlamaanka horey u soo saareen. dastuurka qodobkiisa 6aad lagu kordhiyay faqrad 3aad wadana hadda xasuusantihiin baarlamaanka 9aad qodobkan oo 6aad wuxuu ku kordhiyay faqrad maadaama siyaasadeen ay xasilooneen oo isbedel uu jirayo in baarlamaanka kani uu fadhinayo ilaa baarlamaan kale yimaado haddii doorasho dhici weyso uu joogaya. يعني وحاويان extension معها وحاوديديا فراق إنه جمهورية البرلمان أسقوطه فراق الدولة وريرة النهاية. لكن معناه وحاويان دورش مدعين برلمان كأو فرنا برلمان كسجالات مثلا الهندي سوحيكو أجد أغسطس لو يكون إلا هيتون لكن وحوسي بردي أو أي ظروفها جليين إلى أفر وحالة داري له إلى لاتن الطويل لاتن كي ديسمبر معناه وحاويان برلمان كتبناد madashiisi waxay ku eg tahay December 2020 haddii doorasho dhici weyso baarlamaanka waa sii jiraya waa sii soconaya uu joogaya muddo kororsi maaha laakiin waxa weeye wuxuu diidaa faraaq haddii hal sano ay gasho sanado waa jooga haddii laba gasho labadu uu joogaya taasna waxaad ku arki doontaan sharciga oo markaasi golihii shacbiga uu ansixiyay golaha shacbiga ee baarlamaanka 9aadna wuxuu ahaa labada xilba isaga isku hayay aqalka oo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka saraasa isku haysaa daraaad meeshii golaha shacabka aad ku akhrisan sharcigaas micnihiisu waa baarlamaanka federaalka. faqradda labaad labada aqal ee baarlamaanka federaalka haddii doorashadooda si wada jir ah loo qabto natiijada doorashadana isku taariikh lagu soo dhawaaqo waxaa kulankooda ugu horeeya la qabanayaa 30 maalmood gudahood oo ka bilaabata maalinta natiijada lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed arrin degdeg ah oo markaa jirta awgeed ay la haboonaato inuu isugu yeero in muddada ka hor la qabto. macnaheedu waxa way 30 maalmood gudahood ka hor ayuu u yeeran karaa haddii arrin degdeg ay jirto. faqradda 3aad haddii ay doorashada la qabto taariikh kala duwan oo natiijada lagu kala dhawaaqo taariikh kala duwan aqal walba waxaa kulankiisa ugu horeeya la qabanayaa 30 maalmood gudahood ka bilaabato maalintii mid walba natiijada doorashadiisa lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha intaas waxaa tusaale ahaan labadaas qodob aan soo qaaday laakiin ilaa 5 cutub waan qornay iyagoo sidaa oo tartiibsan haddaba sidaad maqlayseen daawadayaal kaasi wuxuu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waa sharci yaqaan isla markaana dowladnimada aad u garanaya
xilligii uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ka hor intuusan mursal noqon gudoomiyaha baarlamaanka ayuu xeerkan soo baxay waana sharci baarlamaanku ay soo saareen. haddaba arrimaha ishayo waxaa ka mid ah kooxdan qeylinaysa ee danleyda ah xeerarkii iyo sharcigii dalka u degnaa ayay ka hor imaanayaan halka ay doonayaan markaasi waxaan sharci ahayn in markaasi ay ku doodaan oo ay yiraahdaan sidaan ayaan wax u doonaynaa. geesta kale qaladaadka kale ee Roble uu galay markaan eegno tusaale ahaan sheegashadiisii ahayd amniga dalka aniga lagu wareejiyo iyadoo madaxweynihii qaranka uu nool yahay oo uu taagan yahay waa yaab. hadda ma aan wax dunida wali ka dhacday ra'iisul wasaarihii madaxweynihii soo magacaabay ku oranayo isagoo taagan waliba ugu soo wareeji xilkaadii baakoortaadii aniga qabsanayo. si waliba Soomaalidu waxay tiraahdaa caanada tay daba la qabta ayay leeyihiin mar haddii lagu sirmay ninka kani oo maskaxdiisa xitaa caafimaad ahaan horay warbixinaan idin kugu soo gudbinay ee muujinayaan in uu xanuunsanayo oo horay xabsi uu ku soo qaatay dalka Sweden oo uu ku noolaa muddo 6 maalmood ah. waa mid lagu qaldamay magacaabistiisa maxaa yeelay shakhsi aan maskaxdiisa caafimaad iyo aqoontiisa iyo fahamkiisa oo dhameystirneen in loo magacaabo xil umadeed waxa ay leedahay qatarta maanta uu ka shaqeyn karayo waxaana dadka caqliga leh ay ku baaqayaan in si degdeg ah ninkan loogaga qabto ummadda Soomaaliyeed xitaa haddii uu xanuunsan yahay la geeyo goobaha dadka lagu daaweeyo sida cilaajka ama Dr. Xabeeb oo kale maadaama shakhsi xanuunsan uusan ummadda Soomaaliyeed sii hogaamin kareynin. shacabka TV wuxuu sii wadayaa warbixinada iyo baaqyada iyo sidoo kale xogaha culus marka aan xaaladda dalka diradda ku saarino waa inoo qaybaha kale ee soo socday nabad geliyo ayaanu dalanahay xanuun ayaa siibay xagga rabbiga yimi xanuunkaasi wuxuu yahay muddo hadeerto ku dhimo taqriiban ilaa 12 sano ilaa 9 sano ku dhow. xanuunkaasi marka hore dhikar baan lahaa markii dambena faarig baa igu dhacay neerfaha oo dul maray iskaankii la saaray waxay yiraahdeen dadkii dhakhaatiirtu waxay yiraahdeen labada kaliyood bura dhamaysa bura baaba ka dhigto sida sambabka oo kale dalkana wax laga qaban karo waa bedel. waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto inay waxa weeye soo caawiyaan oo Ilaahay dartiisa soo caawiyaan.